Soo dhawaada caruure, caruusadahan iyo idinka. Maanta waxaan idin hayaa garaad caqli badane sheekadiisa. Buugan oo ah buuga Jimcaha. Maantana waa Jimce wanaagsan. Buugan waxaan qoray Abdisalaam Shiino. Sheeko xariiro aynu bilowno. Beriba waxaa jiri jiray qoys ama reer aad u wanaagsan oo barwaaqo iyo nimco ku nool. Qoysku wuxuu ka koobnaa 3 qof: aabbo, hooyo iyo wiil yar oo ay dhaleen. Sida sheekada ku qoran, wiilkan oo magaciisu yahay Garaad, waalidkiisu aad ay u jeclaayeen wiilkan ama inankan, mid caqli badan oo fahan badan waalidkiisa iyo macallimiintiisa, si wanaagsan u ixtiraama, si fiicanna u dhageysta. Hadalkooda ayuu ahaa Garaad. Wuxuu jeclaa inuu fursad kasta ka faa'iideysto, wax akhriskana si aad ayuu u jeclaa. Maalin la qadaynayo, Garaad aabbihii su'aal ayuu weydiiyey. Garaadna isagoo faraxsan iskuna kalsoon ayuu idhi, "Haa aabbo, waan ka jawaabayaa su'aasha. Diyaar ayaan u ahay. Soo ma helayo abaalgud haddii aan si sax ah uga jawaabo su'aasha?" Garaad aabbihii wuxuu idhi, "Haa, waxaad helaysaa abaalgud weyn oo aad ku faraxdo." Halkaas sheekadii markay marayso, waxaa soo dhex gashay Garaad hooyadii si ay u taageerto Garaad. Waxay tidhi hooyadii, "Hooyo macaan, waad ka jawaabi kartaa. Adigu waxaad tahay wiil fiican oo fahan badan. Waan hubaa inaad ku guulaysanayso abaalgudka. Ilaahay ha kula garab galo jawaabta saxda ah." "Aamiin hooyo, insha Allah waan ku guulaysanayaa," ayuu idhi Garaad. Garaad wuxuu u jeestay dhanka aabbihii isagoo dhoola cadaynaya. "Haya aabbo, i weydii." "Diyaar ayaan ahay." Garaad aabbihii wuxuu la yaabay geesinimada iyo kalsoonida uu leeyahay Garaad. Wuxuu idhi aabbihii, "Su'aashu waa sidan soo socota. Sheeg kelmadda tawxiidka ee qofka Muslimka ahi uga duwan yahay dadka kale." Garaad wuxuu idhi, "Waa kelmadda laa ilaaha illa Allah Muhammadun Rasuulullah." Wuxuu idhi Garaad aabbihii, "Haa, jawaabtaadu waa sax." Garaad wuu farxay, wuxuuna idhi, "Ilaahay ayaa mahadda iska leh." Su'aalaha dhiman ee buugga ku qoran iyo sheekooyinka kale waa inoo